السلام عليكم أصحابتا أنتكو ku xiran barteena YouTube-ka Telegram-ka waa anigoo ah Shaafici Daawud waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak muuqaalkan waxaa kugu sharxayaa qaabka aad iskaga diiwaan gelin lahayd linkiga aan ku leenahay FX Primas si aad uga mid noqotid teamkayga waxaa iskaga diiwaan gelin kartaa laba qaab haddaad hore FX Primas account ugu lahayd waxaa iskaga diiwaan gelin kartaa qaab fudud sidoo kaleeto haddaadan account ku lahayn waxaa kugu sharxayaa muuqaalka waxaa kugu sharxayaa muuqaalka qaabka aad iskaga diiwaan gelin lahayd qofka iska diiwaan geliya linkigan teamkaygana ka mid noqdo wuxuu heli doonaa barnaamijyo badan aan soo wadno si free ah ma rabo inaan muuqaalka ku dheeraado linkiga waxaa ka heli doontaa Telegram-ka sidoo kaleetona website-ka waa soo geli doonaa haddeerta waxaa arkaysaa sidoo kale waxaa rabaa inaan ka hadlo application-ka waxaa jira dad badan oo isoo weydiiyo mar walbo application-ka sida hore idinku sheegay waa ready insha Allah waxaa soo bandhigi doonaa after Ramadaan hadda waxaa arkaysaa website-ka in maxaa la dhahaa markaad soo booqatid anticoa.com waxaa arkaysaa maxaa la dhahaa application-ka aan uga hadlaynaa sidoo kale markaa hoos aad sii aadid adeegyada maxaa la dhahaa qaban rabno adeegyada application ku qabanayna ayaad ku arkaysaa iyo sidoo kaleeto interface-ka oo application-ka uu leeyahay hadda ma rabo inaan muuqaalkani maxaa la dhahaa uga hadlo insha Allah muuqaal gooni ayaa ka diyaari doonaa qaabka aad iskaga diiwaan gelin lahayd iyo waxyaabahaas dhan linkiga waxaa ka heli doontaa Telegram-ka sidoo kale website-kana insha Allah waa soo geli doonaa mar dhow markaad Telegram-ka timaadid waxaa ku dhufanaysaa Anticoa Traders Company kadib linkiga waxaad ka arkaysaa maxaa la dhahaa description-ka oo maxaa la dhahaa description-ka ayuu yaalaa kadib copy ayaa dhehaysaa Chrome-ka ayaa imaanaysaa Chrome-ka ayaad ku dhex furaysaa sidoo kale any browser aad isticmaashidna waad ku dhex furi kartaa kadib sidaan ayuu kuu soo saarayaa intaanan maxaa la dhahaa usii gudagelin cashirka FX Primas documentiska ay aqbalayaan maxaa la dhahaa dad badan waxaa jira oo iska diiwaan geliyo balse laakiinse aan laga aqbalin documentiska ay aqbalayaan waxaa waaye kuwa passport waa inaad leedahay baasaboorkaada waxaa kusoo furanaysaa kaar bangi haddaad Soomaaliya joogtid oo kale kaar bangi oo kale maxaa la dhahaa baasaboor Soomaali aa haysatid waxaa soo furanaysaa kaar bangi Premier bangi ama IBS bangi kaar bangi markaad soo furatid oo mastercard aad kasoo qaadatid kadib waxaa kasoo qaadanaysaa sidoo kale swift code iyo bangi statement bangi statementiga lagaa rabana waxaa waaye 6 bil ka hor bangi statement waxaa waa dhaqdhaqaaqa akoonkaada waxaana lagaa rabaa 6 bil ka hor intaas haddaa haysatid aad maxaa la dhahaa steps-ka hadda kuu sheegaya aad raacdid maxaa la dhahaa isla daqiiqadaas ayaa lagu aqbalaa daqiiqado kadib waa maxaa la dhahaa akoonkaada active ah markaa linkiga kusoo dhufatid inta ayuu keenayaa account tab-ka waxaa ka dhiganaysaa individual sidoo kaleeto inta waxaa gelinaysaa first name iyo maxaa la dhahaa last name magaca baasaboorkaaga kugu qoran sidoo kale inta waxaa gelinaysaa email address emailkaas samaysan FX Primas sidoo kaleeto inta waxaa gelinaysaa anaa deertan Turkiya ayaa joogaa oo maxaa la dhahaa Turkiya ayuu soo qabtay maxaa la dhahaa lambarkaada ayaa gelinaysaa sidoo kale intana password-ka ayaa gelinaysaa password-ka sidoo kale waxaa waaye waa xarfo waaweyn xarfo yaryar sidoo kaleeto maxaa la dhahaa calaamadaha wuu kaa diidaa balaaska oo kale wuu kaa diidaa iyo minuska balse laakiinse calaamad su-aalka oo kale waa uu kaa yeelaa foomka intaas markaa buuxisid ma rabo inuu muuqaalka dheeraado intaas ayaa buuxinayna oo isku soo laabanayna markaa intaas buuxisid waa kana waxaa gelinaysaa maxaa la dhahaa magacaada sidoo kaleeto gmail-ka lambarka sidoo kale waa kana password-ka hadda markaa maxaa la dhahaa xarfo waaweyn iyo xarfo yaryar aa ka dhigay sidoo kale lambar aa raacsiiyey calaamado cajabkaasaa ku daraysaa sidoo kale hadda haddaa balaas doorto oo kale wuu kaa diidaa sidoo kale menis haddaa doorto oo kale wuu kaa diidaa laakiinse maxaa la dhahaa waa uu kaa yeelaa calaamad su-aalka kadib waxaa sii dooranaysaa register now
kadib wuxuu unique pin u dirayaa maxaa la dhahaa gmailka aa gelisay ayuu code u dirayaa gmailka ayaa soo furaysaa gmailka markaad tagtid kadib hadda waa kana gmailka markaa imaan waxaa arkaysaa in maxaa la dhahaa bashqad saaran yahay markaa ku dhufan waa kana unique pinka copy ayaa dhehaysaa copy markaa dhahdid maxaa la dhahaa inta ayaa bast ku dhehaysaa kadib markaa basti aa ku dhahdid waxaad dooranaysaa verify email address ayaa dhehaysaa kadib sidan ayuu kusoo saarayaa oo hadda waxaa arkaysaa email verificationka inaa maxaa la dhahaa complete your registration ayuu ku leeyahay hadda waxaa arkaysaa in email verificationka oo tick saaray sidoo kale intaana waa buuxinaysaa oo personal detailska account detailska iyo questionnaireskii sidoo kaleeto KYC-da oo maxaa la dhahaa documentiska haddeerta waxaa ku dhufanaysaa personal detailska ayaa dooranaysaa personal detailska markaad dooratid sidoo kale waxyaabaha qaar oo uu ku buuxinaa balse laakiinse intoo kale hadda languageko kaleeto english ayaa dooranaysaa addresskan oo kale waxaad gelinaysaa maxaa la address kugu qoran swift codeka oo warqada aa haysatid ayaa ka fiirinaysaa addresska ayaa gelinaysaa sidoo kaleeto inta waxaad dooranaysaa maxaa la dhahaa muqdisho sidoo kale markaa hoos sii aadid inta waxaa ka dhiganaysaa 252 sidoo kale 000252 waa dhihi kartaa 00252 ama 252 oo kale sidoo kaleeto inta waxaa gelinaysaa maxaa la dhahaa gobolka banaadir oo kale ku buuxi kartaa hoos ayaa usii bixaysaa inta waxaa gelinaysaa maxaa la dhahaa taariikhda baasaboorka ugu qoran intana waxaa dooranaysaa no iyo no ayaa dooranaysaa buuxbuuxinayna oo isku soo laabanayna insha allah kadib markaa buuxbuuxisid waxaa sii dooranaysaa maxaa la dhahaa proceed ayaa sii dooranaysaa haddeertan waxaa ku buuxbuuxiyey waxaa arkaysaa maxaa la xog qaldan ayaa ku buuxiyey balse laakiinse sidaa kuu sheegay ayaad ku buuxinaysaa oo maxaa la addresska waxaad gelinaysaa addresska ugu qoran swift codeka sidoo kaleeto intana waxaad gelinaysaa gobolka banaadir sidoo kale lambarkaagana waa maxaa la dhahaa asaa already ku buuxiyebo sidoo kale intana genderka marka sidaas markaa u buuxbuuxisid waxaad dooranaysaa proceed ayaa dooranaysaa kadib wuxuu ku leeyahay account typeka waxaa ka dhiganaysaa easyan ama variable sidoo kale haddeerta wuxuu kusoo direen micro variableko kale waxaa loola jeedaa maxaa la dhahaa akoonkaada oo kaleeto waxa waaye spirit variableko kale iyo easyanka wuxuu kula duwan variableka maxaa la dhahaa wax commission ma laha balse laakiinse xoogaa spiritkiisa ayaa badan sidoo kaleeto easyanka ase maxaa waaye commissionkiisa ayaa badan spiritkiisana wuu yar yahay sidoo kale variableka asaga maxaa la dhahaa $100 waa ku shuba kartaa halka easyankana $500 ugu yar marka variable ayaad ka dhiganaysaa hadba adiga maxaa la lacagta ku shubanaysid ayay ku xiran tahay balse laakiinse mar walba waxaa fiican variableka ayaa fiican sidoo kaleeto leverageka aa inta ka dhiganaysid mar walba waxay ku xiran tahay lacagta aa ku shubanaysid ayay ku xiran tahay haddii maxaa la lacagtaada ay yar tahay leverageka xoogaha waxaa laga dhigtaa 1 to 4 oo kale ama 1 to 3 oo kale balse laakiinse lacagtaada haddee badanta oo kaleeto leverageka oo kale 1 to 2 oo kale waa ka dhigi kartaa sidoo kale deposit currency-gana waxaad dooranaysaa lacagta dollarka sidoo kale waxaad sii dooranaysaa proceed sidoo kaleeto haddeertan wuxuu soo saaray questionnairieska inta waxaa ku buuxbuuxinaysaa wuxuu ku leeyahay what is your level education xagga ayaa soo furaysaa oo
sidoo kale wuxuu kusoo saaraa maxaa la lahaa markaa intaas kasoo gudubtid documentiska documentiska markuu kusoo saaro inta waxaa gelinaysaa maxaa la lahaa waa kana documentiska oo aqbala waxa waaye driving license sidoo kale national id car haddaa haysatid sidoo kale passport aniga hadda passport waaye passportkaaga ayaa soo gelinaysaa passportkaaga ayaa soo gelinaysaa sidoo kaleeto intan waxaa gelinaysaa proof residencyga intan waxaa gelinaysaa maxaa la lahaa banki statementiga ayaa gelinaysaa intana banki statementiga ayaa gelinaysaa marka intaas markaa buuxisid upload ayaa dooranaysaa waa kana markaa documentiska buuxisid maxaa la lahaa passportka aad gelisid sidoo kale maxaa la lahaa swift codeka iyo banki statementiga waxaad dooranaysaa upload files haddeertaan markaa kusoo laabato aad doorato dashboardka hadda keliya waxaa dhiman maxaa la lahaa in maxaa la lahaa KYCdaas documentiska ay aqbalaan hadda waxaa aragtaa in email verificationka iyo sidoo kale personal detailska waxyaabahaas dhan aad buuxinay keliyada hadda waxaa dhiman documentiska in ay ayaga aqbalaan marka documentiskaagana sidaa hore kugu sheegay hadduu kuu saxan yahay maxaa la lahaa isla markiiba waa laga aqbalaa linkiga wuxuu ku fiican yahay maxaa la lahaa aqbalaadiisana fududahay sidoo kaleeto hadhowna withdrawga markaa la bixaysid wuxuu leeyahay maxaa la lahaa withdrawga kaleeto wuxuu leeyahay barnaamij kuu fududeynaya in maxaa la lahaa barnaamij screw ah ayuu leeyahay oo FX Primas kusoo dareen oo lacagtaada maxaa la lahaa isla markii ayaa la bixi kartaa xawaalad ahaan ayaa kula bixaysaa sidoo kale muuqaalkani markii koo aad bilaabayna waxaa kugu sharxay in maxaa la lahaa linkiga laba qaab aad iskaga diiwaangeli kartid qaab ah maxaa la lahaa haddaadan akoon aadan ku lahayn FX Primas aad iskaga diiwaangeli kartid oo hadda muuqaalka aan ku sharxay iyo sidoo kaleeto haddii aad ku leedahay FX Primas akoon aad ku leedahay si aad uga mid noqotid maxaa la lahaa tiimkayga aad iskaga diiwaangelisid linkiga waxaad sameynaysaa keliyata create new mt4 ayaa leedahay FX Primas kuu sameysan ayaa waxaa sameynaysaa mt4 cusub ayaa sameynaysaa mt4 cusub markaad sameysid ayaad waxaa sameynaysaa kadib qoraalkan ayaa u diraysaa qoraalkan sidoo kaleeto waxaa soo dhigi doonaa qaybta maxaa la lahaa descriptionka oo videoga ayaa ka heli doontaa oo youtube-ka qoraalkan ayaad u diraysaa oo maxaa la lahaa FX Primas ayaad u diraysaa qaybta gmailka oo waa kana qoraalkan ayaad u diraysaa oo meeshan user waxaa waa qoraalka user ID-gaada ayaa inta gelinaysaa sidoo kaleetana intana waxaa gelinaysaa mt4kaada intana waxaa gelinaysaa mt4ka cusub oo markaas aad samaysay ayaa gelinaysaa kadib ayaga ayaa markay jawaab kusoo siiyaan ayaga ayaa maxaa la lahaa linkiga ku hoosgeli doono oo maxaa la lahaa linkigeyga ku hoosgeli doono marka sidaas ayaa sameynaysaa sidaas qaabkaas fudud ayaa iskaga diiwaan gelinaysaa waa haddaa oo waxaa sameynaysaa keliyata mt4 cusub ayaa sameysanaysaa mt4 cusub markaad samaysatid kadib waxaa sameynaysaa qaybta gmailka ayaa tagaysaa oo maxaa la lahaa FX Primas waxaa u diraysaa messagekan ayaa u diraysaa oo maxaa la inta waxaa ku buuxinaysaa sidoo kale meeshaan iska ilaali user ID-gaada ayaa ku buuxinaysaa sidoo kale intan waxaa gelinaysaa mt4 ID-gaada ayaa gelinaysaa kadib markaa bashqadan u dirtid ayaga ayaa markaas jawaab ay kusoo sii doonaan then maxaa la lahaa sidaas ayaad uga mid noqonaysaa tiimkeyga marka waa ku mahadsan tahay muuqaalka daawashadiisa fadlan haddaa janaalka cusubtaa subscribe saar sidoo kale kambaleelka fur si aad ula socotid waxyaabaha soo dhigay mahadsan